maanta waxaan halkan shir jaraa'id baan ku qabanay anigu gudoomiyaha maxkamadda sare isla markaana gudoomiyaha guddiga cadaaladda ujeedadan shirkan jaraa'id u qabanayna waxa weeye imika anigu intii xilka la magacaabay 3 bilood maalintan la wareegay 3 bilood baa ka soo wareegtay marka waxaan doonaynaa inaan highlight gareeyo ama aan sharaxo ilaa imika bal wixii noo qabsoomay iyo qorshaha noo dejisan iyo dhinacaan jihada noo socono waliba maadaama maalmo dhaweyd la socotay inaanu isbedel weyn oo baaxad leh sameynay intii isbedelka ay guddiga cadaaladdu samaysayna wax press release ama shir jaraa'id rasmi ah aan bixin oo aan ahayn isbedelka la sii daayay isbedelkan wadno waa isbedel garsoorka guud ahaan saameynaya tusaale ahaan waxaa jira intii maxkamadda sare duuqaabeyn badan baan ku samaynay waxaa jiray dacwado badan oo bandhin ahaa oo taagnaa oo 700 iyo wax ka badan oo 700 wax ka badan oo dacwado madaniya oo waddanka oo dhan ka yimi baa taagnaa iyo dacwado badan oo ciqaaba 300 oo kiis in ka badan ah marka dacwadaha waanu dhaqaajinay muddo dheerna dadku xuquuqdoodii bay sugayeen waxa waliba aad noo sii caawiyey intii garsoorayaasha maxkamadda sare la kordhiyay la magacaabay ayaa aad noo sii caawiyey waxa kaloo nu dulqaabeyn ku samaynay waxaanu dulqaabeyn xooga ku samaynay habkii u shaqaynaysay maxkamadda dastuuriga oo idinkii ogaa dacwado waaweyn culus baana soo galay xagga maxkamadda dastuuriga hadday tahay tii hore bishii toddobaad rabanaantii kadib dhacday axsaabta la xidhiidhay iyo tii dambe golaha guurtida extensionkii iyo wixii la xidhiidha marka weliba waxaa noo qorshaysan inaanu structurekii maxkamadda dastuuriga dhisno oo shaqaalihii daruuriga ahaa iyo wax walba uu yeesho mustaqbalka maxkamaddan saruuba ah laakiin waa inuu structurekeedii gaara yeesho sida xeerka nidaamka garsoorku sheegayo ee waddanka u yaalla marka maxkamadda sare dacwadihii way socdaan dadkii waa loo dhaqaajiyay dacwadaha qaar baa sande horeba u sheegay muddo dheer socday qaar baan cidnaba lagu qorin dacwadaha qaar baa laga yaabaa inay bandings ka ahayn oo taagnaayeen ama xilligii transition ka ahaato ama xilliyo ka horreeyay sanawo dheer waxa kaloo iyagana jira waxaanu structurekii xagga maamulka ayaanu dulqaabeyn ku samayn waddanka oo dhan oo markii hore saacadaha ay maxkamaduhu shaqeeyaan way koobnayd waxaanu iminka 7 barka ilaa 2 duhurnimo ayaanu xilligii shaqada ka dhigno haddaa iminka adeeg u timaadaan xilligaa waa ka helaysaan garsoorayaashii iyo howlwadeenadii iyo xeeraaliyaashii iyo howlwadeenadii kale oo iyaguna shaqaynaya marka xagga structureka qaabilaadda bulshada maxay ahaydey in dadka cabashooyinkooda la dhagaysto maxay ahaydey in dacwadaha la dedejiyo waxaasoo dhan waanu bilownay annagoo ka wada shaqaynayna hay-adaha garsoorka hoos yimaadoo dhan markaa waa garsoorayaasha xeeraaliyaasha iyo qareennada oo iyaga laftigoodu waax muhiima ah oo hadii jaraalada dadka difaaca waa la socotaan sidii dacwadaha loo dadajin lahaa adu eriyadaas oo dhan waa duubahabeyn xooga maalin dhaweydna waxaa la socoteen iminka muddo laga joogo week iyo badh 2 week waxaanu ku samaynay isku bedel baaxad leh maxkamadaha hoose iyo xeeraalinta ku-xigeenada xeeraaliyaasha markaa tusaale ahaan dadkay saamaysay waxay gaarayaan 130 qof markaa 87 garsoore iyo 10 xeeraaliye iyo maxay ahaydey 87 garsoore waxaa lagu sameeyey dalacsiin iyo casilaad iyo bedelid meeshiisi laga bedelo number 87 lagu sameeyay garsoore oo garsoorayaasha qaar ahaa heer degmo markii la arkay wanaagoodii marka intii aanan talaabadan qaadin waxa jira la yiraahdo guddiga baarida iyo dabagalka oo guddiga cadaaladda hoos yimaada guddigaas 2 bilood shaqaynaysa 2 bilood iyo badh gobol kasta way tageen waxay la kulmeen garsoorayaasha waxay la kulmeen xeeraaliyaasha waxay la kulmeen dadka adeega loo hayo bulshada qaybaha kala duwan ee bulshada waxa kale la kulmeen
ciddii kasta ay u arkayeen inay feedback siinayso marka iyaga reportkan diyaariyay guddiga cadaaladana runtii dirtay marka maxkamadaha hoose oo kale marka 130 ka qof waxa ku jiray wala dalacsi dadka qaar oo isagoo garsoore degmada ahaa ama tusaale ahaan xeeraaliye prosecutor dacwadun soo oga ahaa ayaa garsoore maxkamadda gobolka laga dhigay ama isagoo gobolka haba rafcaan la geeyay ama isagoo garsoore caadi ah gudoomiye laga dhigay maxkamad degmo maxkamad gobol iyo rafcaan ba gudoomiye looga dhigay waxa kale oo dadkii wanaagsanaa waxa kale oo dalacsiinta iyagu ka mid ahaa isagoo laga yaabo district fogo tuula inuu ka shaqeynayay oo aad u fog ayaa la soo transfer gareeyay marka oo loo soo gudbiyay maxay ahaydey magaalooyinka waaweyn marka taas waxa weeyaan dalacsiinta waxa kale oo iyadana jirtay casilaad dadkii aan mustawahoodu gaarsiisnayn heer ilaa area waxa lagu sameeyay wala casilay oo isagoo garsoore heer rafcaanaha ayaa gobol lagu celiyay isagoo garsoore heer gobol ahaa ayaa degmo lagu celiyay isagoo gudoomiye tusaale ahaan maxkamadda gobolka oo kale gudoomiye ka ah heer gobol ilaa heer gudoomiye ahaade ayaa la celiyo garsoora laga dhigay taasina waxa weeyaan waa celinta waxa kale oo hababka sababta maxaa lagu saleeyay gudiga baaridda iyo dabagalku natiijadii ay keeneen ay bulshada ka heleen hay'adaha kale ay ka heleen ay garsoorka dhexdiisa ka heleen ay dacwadihii ay baareen ka heleen ay iyagu dabagaleen waxa kale oo iyaguna jiray bedel numberkiisu aanu yarayn oo qofkii inta laga bedelay gobolka loo bedelay marka bedelku laba nooc buu midinaad shaqada in la dardargariyo oo dadka qaar inta la dilacsiiyay baa gobolka kale loo bedelay waxa kale bedelka ku hoos jiray meelaha muhiimka ah iyo magaalooyinka gobolada waaweyn dad badan oo laga yaabo district yar inay ka shaqeynayeen baa noo soo transfer gareynay markii la eegay career-kooda fiicnaa shaqaday qabteen quality-gooda ayaa iyagana maxay ahaydey bedel baa la yimi casilaada iyo bedelka dilacsi waxa kale oo jiray ruqsayn wax la yiraahdo dad baa shaqada laga joojiyay marka iyagana dadka shaqada laga joojiyay waxaan ku salaynay baaridda iyo dabagalka iyo cabashada bulshada iyo go'aanada ay qaateen iyo iyadoo procedure-ka iyo la raacay maxay ahaydey nidaamka u yaala gudiga baariduna soo bandhigeen markii dambe gudiga cadaaladdu ka dooday arintaasina waa arin kale oo iyadana muhiim ah isbedelkaas marka maxkamadda sare ee dastuuriga laga yimaado maxkamadaha hoose oo kale wuxuu saameeyay lixda gobol ee waaweyn iyo gobolada yaryar ee kale inta uu saameeyay marka macnaheedu waa lixda gobol oo kale shan gobol oo kamid ah gudoomiyihii maxkamadda rafcaanka iyo gudoomiyihii maxkamadda gobolka iyo gudoomiyihii maxkamadda degmadu way isbedeleen gudoomiyaashii joogay qaarna waa la transfer gareeyay oo gobollo kale loo bedelay qaarna ku dadka la khuruuseeyay shaqada laga joojiyay way ku jiraan waxa loo magacaabay si shaqada loo dardargeliyo oo maxay ahaydey lixda gobol shan kamid ah saddexdii sarkaal ugu sareeyay garsoorka way saameysay si dardargelin loo sameeyo cadaaladda dadka loogu adeego kala dambeyntii u soo noqoto dacwadaha raagaya wax looga qabto cabashada dadweynaha la dhageysto isbedelkan iyo reformkuna aan wadnaa uu hirgalo oo uu socdo waxa kale oo ay saameysay magaalooyinka waaweyn gudoomiyaashooduna way saameysay tusaale man ka soo qaadanay ma wada sheegi karo magaalooyinka waaweyn ee degmo gobol la yiraahdo tusaale ahaan gabiilay oo kale caynabo oodweyne sheekh balgubadle ceelaf weyn iyo magaalooyinka waaweyn ee lamid ah ee lamid ah iyagana intooda badan gudoomiyaashii garsooreyaasha gudoomiyaha ka ahaa way saameysay oo ama waa la dilacsiiyay gudoomiyaashii halka joogayo performance-goodii wax qabadkooda haduu fiicnaa wala dilacsiyo wax laga gobolada waaweyn ee gudoomiyaal ka noqdeen ama transfer baa lagu sameeyay ama demotion baa lagu sameeyo hoos baa loo celiyay oo garsooreyaal caadi ah lagu celiyay arintaasina waa arin iyadana kamid ah waxa kale kamid ah xeeraaliyaasha saan idin sheegay iyagana way saameysay waxa jira xeeraaliyaal la dilacsiiyay iyo xeeraaliyaal laga bedelay goboladii
imika tusaale ahaan gobolka Hargeysa xeraali gobolka Hargeysa waa la bedelay togdheer buu loo bedelay kii togdheer waa la bedelay gabiil loo bedelay caynabo waa la bedelay xeraaliyaal badan bay saameysay iyagana oo sidoo kale loo dalacsiyay qaarna la celiyay qaarna la transfer gareeyay xagaan way ka saameysay waayo de waa bahdii garsoorku waa wan way isla shaqeynayaan qaybun lama develop gareyn karo waxyaalaha kale aanu iyagana ilaa imika ku guuleysano waxa kamid ah guud ahaan inaanu soo celinay image-kii iyo sumcaddii uu garsoorku lahaa oo ay noqoto meel ay dadku u cadaalad yimaadaan meel dadka la dhagaysto meel ma garanaysaa qofku dee gar iyo gardarrabo xukun marka la soo saaro labada dhinac kama farxiso waa ogtihiin laakiin at least inay dacwadoodu socoto oo aanay ragaadin oo aanay ma garanaysaa da fariisan inay socoto oo horu socoto dadku ay garnaq helaan oo dhaqso go'aan looga gaadho iyadana waanu arrintaan waanu ku guuleysanay waxa kaloo isagana kamid ah hay'adaha kale ee garsoorka ay wada shaqeeyaan maxaa kamid ah waxa kamid ah ciidanka booliiska waxa kamid ah ciidanka asluubta ciidanka booliisku waa ogtiino fulintu leeyahay maxkamadaha waxyaalaha ka soo baxay iyaga fuliya waa ogtiino ciidanka asluubtu maxkamaduhu u shaqeeya dadka jeelasha la geeyo maxkamadaha u dira iyaga u dira waxa weeye xabsiyadoo dhani waa meel maxkamaduhu ay da kantaroolaan xeraalintii maxkamadaha kantaroola weliba maxkamadaha haddii dadkana u dira rumaan gareeya dadka la xidhayo go'aan ka gaadha marka iyagana waxaanu samaynay markii horeba waxaa jiray guddiye steerina oo la yidhaha guddiga dubhabaynta cadaaladda oo ay ku jireen marka taa laga yimaado laakiin annaguna ase guddoomiyaha maxkamadda sare iyo wada shaqayn joogta ah ayaanu leenahay qoladan booliisku waxaanu ka wada shaqaynaa in fulimihii la dhaqaajiyo wixii xasaasi keeni mooyaane in fulimaha la dhaqaajiyo booliisku police stationadu iyo dadka hadii jara la rumaangaree la qabtaa inay la socdaan oo xeeraalinaha ay la shaqeeyaan dacwadahoo la dedejiyo stationadaani ku raagin areada in reform ama dubahabayn weyn laga sameeyo oo check and balance-kii hay-adahani ay sajeegaraynayeen laftigiisu inuu soo socdo asluubtana waxaanu ka wada shaqaynaa iyagana inaanu dee wada socono ay wada shaqayn weyn baanu leenahay waxaa kaloo kamid ah hay-adaha kale iyaguna cadaaladda sida wasaaradda cadaaladda garyaqaanka guud guddiyada xuquuqul insaanka maxay ahaydeen jira hadday yihiin kuwa qaranka guddiga xuquuqul insaanka qaranka iyo hadday yihiin kuwa ururada private-kaaba civil society ururada bulshada oo iyaguna bulshadii matala saxaafadda eriyooyinkaasoo dhanna strategy cusub ayaanu bilownay imika tusaale ahaan ururada bulshada inaanu howlgelino si ay dadkii message u gaarsiiyaan meeting baana noo qorshaysan horena waanu soo aragnay waxaa kaloo ka mid a maxay ahaydeen ururada qareennada oo iyaguna waax muhiim ah oo de meeshan rukun weynka ah iyaga laftoodu inay wada shaqayn xooga iyo wixii dardargelinta inay nala wadaan iyagana aanu wixii aan la qaban karan la qabanno tusaale ahaan kale maalinood ururada saxafiyiintu way yimaadeen waxaanu sheegnay in approach cusub saxaafaddu sida dadka kale ee ku nool qaranka Soomaaliland ay xuquuqna leeyihiin waajibna saaray marka hadii jaraale markay dacwadahoodu soo galaan in sida dadka kale caadiga loo dacweeyo waa istifaacaan oo qareena helaan oo intaan mihnadoodii la xidhin ma garanaysaa ama aan xarig dhicin wixii khalad u dhaca mooyaane dabadeedna hadhow tole wixii xukun lagu helo dee markay istifaacaan ay dadka kale ula sinaadaan waanu ka wada hadalay arrintaa ururadu waanu u yeedhnay ragga qaar halkiinan joogaa way fadhiyeen waa approach cusub oo runtii waqti qaadan doona haddii la yidhaahdo marka eeg guud ahaan reformku waa package cid waliba ay ku leedahay rol iyo inay ka qayb qaadato garsoorkuna meel go'doonsan maaha meel ka godoomi kara maaha noloshii iyo waa inuu sectorkan oo dhan la shaqeeyo marka haddaan guddiga cadaaladda anoo afkoodii ku hadlaya iyo kii maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan maanta idinku yeernay ilaa imika strategy degdeg ahaa ee dhawaa ee short termka strategy ahaa iyo kii fogaa labadiiba waanu ku taaganay waxa kaloo aanu loobi weyn wadnaa oo runtii madaxweynuhuna si fiican uu noo soo dhaweeyey in budgetka sanadkan la kordhiyo dhammaan hay'adaha cadaaladda oo dhan gaar ahaan garsoorka sare loo qaado si nolosha dadku wax isaga bedelaan la xisaabtan kuna yimaado taasina waa mid socoto waynu eegi doonaa halkay ku dambaysaa haddii la yidhaahdo
kama hordhici doono laakiin madaxweynuhu positive buu soo dhaweeyey wuu ballan qaaday xeeraaliya guud iyo wasiirka cadaaladdu annagoo wada jirnaanu la kulanay guddiga budgetka waanu la kulanay iyagana meel fiican bay noo maraysaa rajo weyn baananu ka qabnaa ugu dambayn waxa kaloo aan dubaqaabayn ku samaynay waxyaalo naafici doon imika tusaale ahaan lama ogeyn markii hore statistics dhaba ama tirakoob dhaba oo dacwadaha soo gala qarsoorka marka xafiis waxaanu abuurnay halkan guddiga cadaaladda iyo maxkamadda sare hoos imanayo oo daatada ururiya si sanadka aakhirkiisa loo ogaado imise dacwadood baa soo galay imisaa dhammaaday noocoodu noocay bay ahaayeen naturekoodu muxuu ahaa madani ciqaab si halkaa looga ogaado directionka ama dhinaca dalku u socdo marka 6 biloodkii waanu soo saaraynaa sanadkiina waanu soo saarayn waxa kale inuu maqaabeyn u sameeyna xafiis dibadda la xiriira oo ay saxaafadu xog ka hesho oo ma garanaysaa ay si fudud ay uga soo xiriiri karaan oo aanay dib ku noqonin markii information ka doonayaan waayo la socotaano cadaaladda ama garsoorka iyo security-ga ama ciidamada iyo caruurta iyo eerooyin baa jira saxaafadu ay xeerar gaar ah ka leedo hab gaar ah marka laga warramayo la kafargaraynayo ama laga warramayo ay tahay in si gaar ah tixgelin iyo qawaaniin gaar ah la raaco marka si taa loo hirgeliyo oo meeshiina saxaafadu ay information-kii uga helaan access u helaan at the same time no rules-kii iyo qawaacidii iyo sharciyadii ka yaala ay u ilaaliyaan taa lafteedu waanu qaabayno dib baanu u habaynay iyadana runtii way socotaa ugu dambayn anigu halkan message ka gudbinaya waxaan ugu baaqayaa annagu dhinacayagii haddaanu nahay dadkii mas-uuliyadda ugu sarreeyay garsoorka hayay anigu afkii guddiga cadaaladda ku hadlaya gudoomiyaha maxkamadda sare ku hadlaya ka dastuuriga ku hadlaya waxaan nagu waajibay inaanu dadaal samayno inaanu la dagaalano musuqmaasuqa inaanu la dagaalano eexda inaanu la dagaalano shaqo xumaanta in adeeg fiican dadku halkan ka helaan waa sababtan isbedeladan iyo reformkan weyn u samaynay inaan gudiyadan dabagalka gudiyada eegidda waxaasoo dhan way shaqeeyaan oo hawl galaan kormeerada kordhino dadka laga cabanayo wax ka qabanno kuwa shaqeynaya laftigooda baahidooda iyo wixii dhiba aan wax la qabanno bulshadiina waxaan doonaynaa u tabisaan bulshadiina in iyaguna sidaan ugula shaqeeyaanoo ay joojiyaan laaluushka ay bixinayaan oo in adeega ay doonayaan iyadoon cidina ka habranayn baa la siinaya aniga albaabkaygu wuu furan gudoomiyaasha kale way furan garsoorayaasha way furan amar bay ku qabaan inay bulshada u shaqeeyaan lacagtaada iska hayso waa lagu adeegaya waqti dheer bay qaadanaysaa anigu maanta ma oranayo maantaanu perfect naho wax walba dhammayno ma oranayo laakiin wadadeedii baanu bilownay iyo noobatiisamkii axdii qabyaaladda oo wax weeyaan halkaad oran lahayd wartalow yaan garanayaa oo ku jira garsoorkii cid walba aday kuu fadhida qof walba aduu ku adeegaya qof waliba waa walaalka iyo habla waa walaalaha hablaha ka shaqeynaya ragga ka shaqeynaya wixii cabashaana maalin baa awoodida taagteeda waxba ka qabanayna marka bulshadii inay darafkeedii ay ka soo baxdo waajibkeeda arrintaasuna waa message aan gudbanayo doonay inay iga gudbisaan waqti bay qaadanaysaa dhaqan baa jira maxay hayday annagu waa inaanu shaqeyno waajibkeeda ka soo baxno sabirno qorshe la nibaadno bulshada halkaas baanu fadhinaa dan caamaanu haynaa dhinaca kale bulshada waxa loo baahan yahay isbedelka iyaguba ay arkeen ay ka markhaati kacayaan soo kordhay waddankoo dhan anu caasimadda kama hadlayo waddankoo dhan inay la shaqeeyaan waddankoo dhan maanta dad u shaqeynaya jooga shalayna way joogeen isbedelkana aanu samaynayna ujeedadiisa kama dambaystahay waxay hayduun in la dardargeliyo ay ahayd wax kale ma ahayn ama hal la dalacsiiyo ama hal la casilo ama hal la bedelo transfer ha lagu sameeyo ama ruqsayn ha lagu sameeyo marka kaasina ilaa imkana 3 bilood ilaa maalintii xilka lagu wareejiyay aniga 3 bilood baa ka soo wareegay horana istiraatiijiyo hore u jiray istiraatiijiyadii iyo qorshayaashii hore waan dhiirigelinaynaa wada shaqayn qodobka ugu dambeeyana waxa weeye hay'adaha aan idin sheegay ama cadaaladda ama garsoorka waxaan principal ahaan u aaminsanahay wada shaqayn roolka iyo responsibility-ga ama awoodaha la kala leeyahay way kala duwan yihiin waxa weeyaan waaxdan garsoorku waa waax la siman fulintii iyo xeer dejintii madax banaanideeda ay leedahay qaybteeda gaar ay leedahay istiqlaaliyadeeda ay leedahay laakiin hay'adaha kale ee la shaqeeyana wada shaqayn fiican baa iminka noo dhaxaysa waanu sii dhiirigelinaynaa waanu wadaynaa insha allah muhiimaduna waxa weeyaan cadaaladda iyo garsoorku waa adeeg sida dhakhtarka
imka caafimaadka adeeg uba loo tagaa halkan adeeg baa loo imanaya adeegka in la improve gareeyo oo la hagaajiyo oo dadka cabashoodii la dhageysto taasuma noo principal iyo inaynu ma garanaysaa bulshadeena u adeegno dhammaan waxyaalaha bulshada cudurka ku oo dhan la dagaalano waqti bay qaadanaysaa dadaal bay u baahan tahay juhdi u baahan tahay laakiin wadada ku taagnaano marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan idin salaamay